سيد في بقرتو يديو أشكي لدول صار يوم صدقوا دعارو صدقوا beesha ajuura ayaa maanta caleemo saartay suldaankooda kaasoo ka dhaxlay awowyadiisa oo ilaa 1887 soo hayay hoggaanka suldaannimo. xafladda ballaaran oo lagu caleemo saaraya suldaan cabdulaahi suldaan macalim aadan suldaan xuseen suldaan iidow roble ayaa maanta lagu qabtay magaalada Wajeer. halkaas ay ka soo qayb galeen culimadiin mas'uuliyiin waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. waxaan leeyahay arintaas hal adkeeyo doorashadu waa sahlan tahay qofka in la magacaabo maanta sidaan la isugu imaada la cayaaro way sahlan tahay laakiin waxaa adag in amarka la qaato. waxaan idinku dardaarminaa in duqa amarkiisa la qaato. duqana sujoodiin aabbahay waxay ahayd laba farood saaxiib ay ahaayeen waana isla soo shaqaynayeen. waxay ii sheegtay hooyadayaan u sheegaan dhahay waxaa la duuhayaa duqaya aabbahay suldaankaa la duuhayaa aanu socdaa. waxay dhahday duqaas waxaas ahay best man maalintii arooskii aabbaha aniga aabbahays aroosaniil best manaas ahay. marka maanta ani maalin iga farax badan ma laha aabbahay oo igu soo darsamay oo suldaan noqday oo meesha aabbahay ii fariisan doon lama doorteen oo looma sheegeen dadkana ma ogolaadeen cabdulaahi macallin aadan xuseen iidow roobla waa wax ilaahay xaggiisa ka imaaday. aniga markii hore waxaan dhihi jiray cabdulaahi ha la doorta baan dhihi jiray kuma aan jeedin boqornimada laakiin hadda waxaan leeyahay cabdulaahi ha la duubaan leeyahay. midda kale waxaan idiin sheegi ninkan waxaa soo saaray qolo nin walba qoluu ka dhashay ma ogtihin sida hadduu sheekhi sheegay nabigaba qoluu ka dhashay salawaatullah caleyh. maalintii asaga uu tagayna qabiilkii hala raadiyey lama dhihin ninkii meeshii joogay oo loo gartay baa la siiyey. wajeer baa loo boqraday ninkan haddii qolo ay keentay ama geelmariis keenay ama ajuuraan uu keenay waaqle iyo waalamaga dagoodiiya ogaadeen muslimka dhulka ku nool oo dhan hataa dowladda yuu boqor u yahay. qaar ka mid ah waxgaradka ka soo qayb galay ayaa suldaanka beesha ajuuraan alla uga baryay inuu xilka u fududeeyo. marka aan fiirino shaqada ugaasyada ay qabtaan iyo salaatiinta ama garaadyaalka ama malaqyaalka shaqada ay qabtaan ummadda ayay mideeyaan ammaanka ayay ka shaqeeyaan madrasooyinka ayay dhisaan nabadda ayay ridaan ilmaha ayay fii in laga bixiyo ayay ka shaqeeyaan waa isu guuriyaan waa roob doonaan ilaahay ayay baryaan ummadaha jiiraanka ayay isu keenaan. nafikiri leo hii tumekutana hapa ili tutoase mzee rafiki yangu ndugu yangu Sultan Abdullahi Sultan Macalim Aadan Sultan Hussein Sultan Iidow Roble mukaangalaa hivyo
hii lineage ambao walikuwa viongozi katika jamii ya Ajuran na Galbraith pia. Kwa hivyo yeye ni mtoto ambao amesaliwa kama mfalme, amekuwa successful, yes, na sio kitu ambao ametosha leo na kuleta tu kutoka nashukua mkono na kuambia wewe sasa kwa sultan. Hapana. ilaahay khayr hana waafajiyo hortay ayaa la duceeyay sultaanka. waxaan leenahay ilaahay garabkaada ha gala, waan kugu faraxsanahay, waxaan u imaanayo waqtigayna u soo dhumin waa inaan ku raacsanahay darteed taasa kugu filin, waana kugu faraxsanahay biidin ilaahi tacaala. ilaahayna waa ku baryaynaa. waxaan ognahay taariikhda Soomaaliyeed cid ugu horeyso sultaan duubatay ciidan reer Abeey beeshan maanta aan dhex joogno inay tahay taasaan ogna taariikhda. maadaama taariikhda dadku ugu horeeyay as heedeen marka way aragaad ku tihiin, waxaan u maleynayaa inaad dadka damban aad insha Allah tacaala as tacliin badan siini doontaan oo wax ogaal fara badan dadka dheer tihiin. marka anaga garab una idin insha Allah hoggaanka adiga laga rabaa Sheekh Cabdullaahi biidnillaahi tacaala. ugu dambeyntii Suldaan Cabdullaahi Suldaan Macalim ayaa u mahad celiyay ummadda iskugu soo baxday caleemasaarkaasi. Shukrani kwa wote. Baada ya shukrani, hii mavazi mulinivalisha leo ni ya ukumbusho ambaye baba yangu Sultan Maalim Adan, babu yangu Sultan Hussein, babu yangu Sultan Ido Roble walivalishwa tangu 1887. Mimi nitatumikia Wakenya wote, Waislamu wote, Wasomali wote na Waajuran wote kwa haki insha Allah. Asanteni. Abdulwahab Nur, Alpha TV, Wajeer.